اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaan in sha allahu tacaala isku dayayaa inaan xadiidka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo dalaalaadkiisa aan wax ka tilmaamo. siduu abu hurayra nebiga ka wariyay calayhi الsalaatu wasalaam, nebigu wuxuu leeyahay: maa ra'aytu midla الnaari naama haaribuha walaa midla اljannati naama taalibuha. xadiidkaasi waxaa soo saaray imaamu tirmidi iyo طabrani iyo ibnu mardaweyn. sheekh ilalbanina wuxuu ku tilmaamaya inuu xasan yahay. nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy: maan arag wax naar la mid ah oo uu seexdo ku ka cararaya. manaan arag buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam, ama ma garanayo wax janno la mid ah oo uu seexdo ku dalbaya ama raadinaya. yacni nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa naar ninka raba inuu ka cararo oo naari waxay tahay garanaya, iyo rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga tilmaamay oo aada u tiro badan. nin naartaasi ka cararaya oo haddana seexanaya maan arag buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam. waxaa la mid ah janno qof garanaya iyo waxa nicmo ku jirta iyo sida loogu badrhaadhayo ama loogu barwaaqoobayo. jannadaa qof hunguri uu ka hayo oo raba inuu helo oo haddana caajis iyo hurda ay haysoo seexanaysa, isna maan arag buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam. taa macnaheedu waxa weeyaan alkhaa'ifu laa yanaam wاlraaji laa yanaam. ka baqayaa ma seexdo ee maxay ka baqayaa? cadaab ka baqaya. maxaad u malaynaysaa haddii dab halkaa ka soo gubto oo aada aragto kayntaa kugu xigta ama guryaha kugu xiga ama magaaladaa kugu xigta oo ololaysa oo holcaysa, oo aada yaqiinsantao aada aragto dabku sida uu yahay, ama dhinacaaga fulkaana ka qarxo buurta aad arkayso dabka lalinaysa, dhagxanta dabka aad daadinaysa. ma u malaynaysaa inay kugu soo dhacayso? horta iska yaro seexo, ha iska baxa dabkuye cabbaar seexo ma kugu soo dhacaysa? waa waxaan macquul ahayn. qof dab arkaya uu ku soo socdo inuu seexdaa waa wax caqligu inuu aqbalo ka fog. wuxuun bay dhici kartaa haddaanad rumaysantahay waxaan inaanu dabba ahayn, ama maanka wax kaaga dhiman yihiin doo aanad wax kala garanaynin, markaa un baa dhici karta inaad seexato. walidalik buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa khaa'ifka noocaasi inaanu seexanin. qofka rajaynaya maalan fursad ayaa taalla lagu leeyahay haddaad waxoogaa shaqayso, hargeysiya waxa yaalla keligaa baa leh, ka kaalay janno iyo adduunka iyo waddanmo waaweyn iyo waxaa ka kaale. daarahan yaryare hargeysa ka dhisan iyo inta ku jirta ayaa lagu yihi haddaad saacadahaa shaqaysa adaa leh. qofka hungurigaasi uu hayo ee isla waad xaqiijin karaysaa inaad intan hayso, waxaa laga yaabaa inaad habeen iyo maalinba la seexan laaday meel waxoogaa yaro faa'iidaa lagugu sheegay. soomaalidu dee haddii meel dunida dabadeeda laydha way ka qaraxdo waxoogaa yarbaa ka jira, geedigaa loo wada xidhxidhaa. reer miyiga meel cidlaa degane abaara haddii laydhaha halkaasaa barwaaqa ka jirta, geedigaa loo wada xidhidhaa. waa dhaqan bini aadam. adigoo og fursaddaa inaad helayso, janna waxay tahayna garanaya, miyaa cagsi iyo kasli iyo hurde iyo waxqabashaa la-aani ku soo gelaysaa? xadiidkan markaa dadna ka leeyahy waxa weeyaan ramadaan baa dhammaanaysa. dadku wakhtiga ramadaanta maadaama shaydaanka intii waaweyneyd la xidhxidhay, maradadii ay xidhan tahay, dadku ramadaanta nashaad bay helaan, cibaadaday badsadaan, ilaahay bay ku xidhmaan subxaana wa tacaala. wardi badan aanay hore u akhriyi jirin bay wardiyaan, soom bay soomaan, salaatuleyl bay tukadaan, waxay isku dayaan inay afkooda haystaan, in badan bay daaco ku dadaalaan. waana fursa runtii ay tahay in lagu dadaalo. laakiin ramadaan waa dhammaanaysaa, fama bacdaha maxaa ka dambeeya?
nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka صaxiixu muslimka ku yaalla isagoo saxaabadiisa la hadlaya wuxuu yidhi waladii nafsii biyadih low ra'aytum maa ra'aytu ladaxiktum qaliila walabakaytum kaiira qaluu wamaa ra'ayta ya rasuula allah. nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam isagoo salaad tukaday oo ku soo jeestay saxaabadiisii ayuu wuxuu leeyahy ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye waxa aan arkay haddaa arki lahaydeen waxaan arkaya haddaa arki lahaydeen in yar baa qosli lahaydeen yacni qosalku idinkama yimaadeen in badanna waa ooyi lahaydeen tajaaruuna ila allahi subxaanaه wa tacaala in badanna waa ooyi lahaydeen. saxaabadii waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisii oo maxaad aragtay waxaa kalifaya aad aragtay waa maxay. nebigu wuxuu ku yidhi ra'aytu اljannata waannaar waxaan arkay buu nebi moxamed leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam janno iyo naar baan arkay. akhwatii fi lcaqiida sunnada iyo diinta waa ka mid qofku inuu rajeeyo ilaahay nimcadiisa iyo naxariistiisa iyo dembi dhaafkiisa. sicatu raxmat ullaahi qofka arkaa ma quusto, laakiin waxay culammadu yidhaahdaan bayna alrajaa'i wاltamani faraq weyn baa udhexeeya. waxay yidhahdaan atamani yusaaxibuhu lkasr, tamaniga yididiilada qofku wax iska tamaniyo waxaa la socda bay yidhahdeen kasl iyo cagsi wax ma qabanayo laakiin waa iskaga riyoonaya waxa inay saasi noqdaan ama u helo waa ku riyoonaya laakiin maaha qof camal ka soo fulayo dhaqan ka soo fulayo. ama bay yidhahdeen rajaagu waxay yidhahdeen saaxibuhu waa mujid, waa qof dadaalaya, waa qof dariiqa ku sugan rajana qaba inuu waxaa gaari doono. walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab man yacmal suuءa yujza bih walaa yajid lahu min duuni اllahi waliya walaa nasiira. ma aha buu rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala tamanigiina iyo yididiiladiinna riyadiinna ma aha iyo riyada ahlu kitaabka toona. ahlu kitaab intay meel fadhiisteen bay waxay idhahdeen naxnu shacb اllahi اlmukhtaar ama lan yadkhula اljannata ila man kana huudan aw nasaara. janno geli maayo waxaan yahuudiya nasaara ahayn. muslimkuna hadduu isna yidhaahdo bes muslim baan ahay ilaahay wuxuu leeyahy yididiilo maaha arrinku iyo riyo maaha ee man yacmal suuءan yujza bihi baa ilahay yidhi cidda xumo samaysa waa lagu abaal marin. ilaahay subxaanaه wa tacaala sokadiina heli maaya cid u hiilisa ama u gargaarta. walidalik ayaa alxaafid ibnu xajar alcasqalaani raxmat ullahi calayh wuxuu leeyay rajaaga la sheegaya qofka taqsiirku uu ku dhacay ee dee ilaahay xuquuqdiisi aan wada dhammaystirin ilaahay malaha ha wanaajiyo. waa qof kasta oo muslima markaa qof kasta oo muslimi ilaahay ma gaadhayo wixii uu xaq u lahaa inuu la wada yimaado, laakiin wuxuu ogyahay ilaahay wuxuu nimco siiyey inaanu ka wada mahadnaqin. wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha idan shukrigaaguna waa laa yuxsa inaad la imanayn baad ogtay waa dadaasha laakiin tuxsini danna biاllah ilaahay baad balaa wanaajinaysaa waxaad is leedahay ilahay intaa waa kaa aqbalaya. cafwigiisaad rajaynaysaa waxaad is leedahay ilahay waa ku cafinaya. kaasi waa raaji waxaanay u dhowday in ilaahay ka aqbalo dembigiisa masaxo. qofka taaco badan la yimi ee rajaynaya in ilaahay subxaanaه wa tacaala ka aqbalo waa raaji. amaa buu leeyahy qofka intuu macsida dabaasho murugana aanay ka haynin haddana rajo qaba kaasi waa guruur buu leeyahy wagarakum biاllahi اlgaruur. kaasi waa mid kadsoomay rajo maaha taasi ama rajaa maaha waayo rajaagu wuxuu ku xidhan yahay camalka wanaagsan. ilahay wuxuu ina leeyahy laqad kana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasana. ilahay rasuulkiisa ku dayasho fiican baa idinku sugan yay ugu sugantay liman kana yarju اllaha walyowma alaakhir. qofka rajada qaba ilaahay ka cabsanaya maalinta qiyaame ee wadakara allaha kaiira qofka ariiqii nebi maxamed mara calayhi الsalaatu wasalaam. dannigu aada ilaahay u wanaajisaa wuu fiican yahay laakiin tamani maaha. khawfku in ilaahay laga cabsado
وإنه خوف دبا النقطة نار إنها تكبقطها وإن wax dhaban noqota imaam al-Ghazali rahmatullahi alayhi ba wuxuu leeyahay khawfka dhabta buu yidhi misaal baan siinaya adoonka ilaahay rumaysan maalinta qiyaamana rumaysan lana waan cabsanaya ee ereygaasi uu dhab ku yahay hadduu saadiq yahay buu leeyahay waxaa ka bixi lahaa ama ka iman la arrimo tusaale buu yidhi haddaad nin boqora ka cabsanayso ama qutaacu tariiq kuwa wadada gooyo jidgooyo dayday jidgooyo ku jira aad ka cabsanaysa buu leeyahay qofku wuu naxaya oo waa baqaya jidhku waa gariiraya oo hurda ka iman mayso oo cunno u dhadhami mayso oo waxaasoo dhan waa kala tegaya siduu u baxsan lahaa oo xataa reer iyo ahalku wax weyn lama aha dhulka iyo deganaashiyo wax weyn lama aha meeshii dadkuba deganaa inuu ka cararo maadaama aad boqorkan islaadii waa ku dilaya ama waa lagu xidhayaa meeshii magaalo ahayd ba inaad ka cararto bannaan afka saartaa bay u dhowday kayna cidlaa iyo waxsha inaad u baxdo raaxada wuxuu ka doorbidayaa buu leeyahay tacabka iyo mashaqada iyo daalku ka doorbidaya khatar oo dhan buu u banbaxaya waayo khatar ka weyn buu ka cabsi qabaa buu leeyahay fa kayfa man yakhaafu binnaar buu leeyahay marka haddii khowf jiro waad naar ka cabsanayso qofka naar ka cabsanaya waa in maxay laga helaa buu leeyahay waa in laga helaa buu leeyahay xadiidkaa nebigu yidhi maa ra'aytu midla annaari naama haaribuha tusaale labaad isagoo bixinaya buu wuxuu leeyahay dadkan khafladu ku dhacdayow ama dadkan kadsoomay ee adduunka ku kadsoomay ku mashquulayow waartan zuulaysee tegaysa ha ka fakerine meeshaad u guuraysa geeddaad tahaye meeshaad ku socoto ka faker iyo meesha loo aroorayo ilaahay qur-aanka wuxuu kuugu sheegay buu leeyahay wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya mid idinka midi ma jiro ilaa iyo jahannamo waa u arooraya uma nunaji aladiina taqow wanadaru aldaalimiina fiiha jifiya ilaahayna wuxuu yidhi waxaanu badbaadinaynaa inta alle ka cabsatay ee naar ka dhowrsatay ee baqatay markay dunida joogtay ama kuwii daalimiinta ahaa iyagoo rundudaa lagu tuuraya wuxuu leeyahay wuruudka waa la hubaa najaadku se shaku ku jira jahannamo inaad indhaha saaraysa waa la hubaa jidka siraad inaad mari doonto oo jahannamo kor mara oo dhuuban oo af badan oo madow ka warran bridge dhuuban oo la yidhi timahoo kalea buu leegi oo af badan oo la yidhi waa seef oo kale oo haddana madow ah oo haddana jahannamo ku dul yaalla haddaad marayso khatarta intaa leega haddaad ku socoto inaad jahannamo dusheeda mari doonto oo meesha la marayaana uu yahay bridge aada u dhuuban oo af badan oo mugdiya madow waayo jahannamo waa madow oo madow inaad marayso sidaa haddaad ku marayso waana la hubaa buu leeyahay wuruudkaasi inaad u aroori doonto waa la hubaa najaadkuse kuwa badbaadaya inaad ku jirtaa shakay ku jirtaa ayuha alikhwa raajigu waa aalib markaa khaa'ifkuna waa haarib qofka raajiga ee rajaynaya waa qof jannada hungurigu kaga jiro culammaduna waxay yidhahdaan manaazilu saa'iriina ila allahi subxaanahu wa tacaala ama midaaru sayri ila allah xagga rabbi ee loo socdaa waxaabay ku koobantahay bay yidhaahdaan masalatu alkhawfi waalrajaa iyo masalatu alxub saddexdaa mas'alo ayay ku koobantahay bay yidhaahdaan asayru ila allahi subxaanahu wa tacaala walidalika ayuha alikhwa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wax badan oo ka mid ah dadka ilaahay ka cabsaday ee khaa'ifiinta ah khaa'ifiinta rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa sifaat tiro badan leh kuwa rabbi rajaynayana sifaat baa rabbi ku tilmaamay aan qur-aanka markaasi eegno marka ilahay wuxuu ka warramayaa duul naar ka baqaya markaasaa rabbi wuxuu leeyahy ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laaayaati liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا دول با إلهي كورمي فكرية وإلهي مخلوقات كيس كفكرية
oo cabsanaya oo rabbigood xusaya oo qafla aanay haynin oo mar kasta ilaahay xusaya hadday fadhiyaan iyo hadday sare joogaan iyo hadday jiifaan baa la yidhi qofku saddexdan xaalo kama baxo inuu taagan yahay iyo inuu fadhiyo iyo inuu jiifo waxba uma dhexeeyaan saddexdiisa xaalaba ilaahay wuxuu tilmaamay inuu rabbi xusayo laakiin waa maxay wuxuu ka cabsanayaa ilaahay weydiisanaya subxaanaka faqinaa cadaaba annaar buu leeyahy ilaahay wadaaka xumo ka hufane cadaab baanu kaa nabadgalla kaa magan galla rabbanaa inaka man tudkhil innaara faqad akhzayta wama lilظaalimiina min ansaar ilahay wuxuu tilmaamaya qul aunabbi'ukum bikhayrin min dalikum liladiina اtaqw cinda rabbihim jannaat tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha waazwaaj muطahara waridwan min allahi wallahu basiir bاlcibaad kuwa alle ka cabsaday ee janno gelaya ee waxaasoo nimco ale waa kuwe aladiina yaquuluuna rabbana inana aamana faغfir lana dunuubana waqinaa cadaaba الnaar waa kuwa markay dunida joogeen ilaahay ka magan gelaya cadaabkiisa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu sifaynayaa cibaad الraxmaanka ilaahay dhab u caabuday waa cibaad الraxmaani aladiina yamshuuna calى اlardi hawna ilaahay sifaadku ku sifeeyey waxaa ka mida kuwaasi habeen oo dhan inay taagan yihiin wاladiina yabiituun lirabbihim sujada waqiyaama sifaadka ugu mudan ay leeyihiin waxaa ka mid ah والذيina yaquluuna ربna اصرف عنا عdاaب جهنم إن عdاaبha kana غراama إنha sاءت مستقرا ومقاama rabbi subxaanaه wa taعaalى wuxuu ku sifaynaya aakhiro kuwa badbaaday والذiina hm min عdاabi رabihim مشfiquun baa ilahay yidhi إna عdاaبa رabihim غayr mأmuun ذلika لمن خاف مقامي وخاف وعيد وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب الصموم إبراهيم بن الأدهم شيخ الله يرضى إبراهيم التيمي أياه وحليهاي dunida markay la joogo ninka aan cabsidu ku badnayn waxaan uga cabsi qabaa buu yidhi inaanu ahlu jannaa ka mid ahayn waayo ahlu jannaa ilaahay wuxuu ku sifeeyey waxay yidhaahdeen inaa kunna qablu fii ahlina mushfiqiin baa ilaahay ku sifeeyey markii wax la isweydiiyey kuwii jannada galay war maxaa jannada idin keenay markii la weydiiyey waxay yidhaahdeen markaanu ehelka iyo reerka iyagii la joognay qofka bini aadamkii waa markuu ugu degan yahay markaad gurigaaga iyo reerkaaga iyo daartaada iyo meeshaada joogta waa markaad ugu degantay iyagu waxay leeyihiin markaasaanu uga cabsi badnayn halkaa markaanu joogno ayaanu habeenkii taagnayn oo ilaahay ka baqanaynay oo cabsanaynay sidaa awgeed baa famana allahu calayna wawaqaana cadaaba asamuum ibraahim ibnu ladham markaa wuxuu leeyahay ninkii adduunka markuu joogay aan ishfaaqaasi ku jirin mushfiqa aan ahayn waanu cabsi qabaa buu yidhi inaanu ahlu jannaa ku biiraynin waxaan kaloo u cabsi qabaa buu leeyahay ninka adduunka markuu joogo aan murugaysnayn ee naar iyo cadaab iyo waxa soo socda ka murugaysnayn kaana waxaan u cabsi qabaa buu leeyahy inuu ahlu naarka ka mid noqdo waayo ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa waqaaluu alxamdu lilahi aladii adhaba cana alxasan kuwii naar ka badbaadee janno galay maxay leeyihin waxaa mahad leh ilaahii naga kaxeeyey cana alxasana rabbana ina rabbana lagafuurun shakuur rabbigayo waa kii dambi dhaaf badan ee shakuur ah saasay leeyihin idan qofka dunida markuu joogo aan xusniga haynin buu yidhi aakhire inuu ku biiri waayo kuwa weedhan odhanaya baan u baqayaa buu leh ayuha alikhwa nabigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkuu badin jiray anas ibnu malik xadiidkii bukhaari wuxuu leeyahy kana akharu ducaa'i nabiy rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar naar inuu ilaahay ka magan galo ducooyinka ugu badan ee nebi moxamed akhrinaya calayhi salaatu wasalaam bay ka mid ahay walidalik baa imaamu xasan albasri wuxuu leeyahay dadka badh baa ammaani iyo didiile iyo inay rajo iska qabaan un isdhigay adduunka ka baxay buu yidhi iyagoon cabsida badani haynin
laakiin iskale uun ilaahay baanu malaha u wanaajinay hadday malaha wanaajiyaan buu la yidhaha camalku uu wanaagsanaan lahaa waxaa looga cabsi qabaa bay culammadu yidhahdaan kuwaas inay ku biiraan kuwa ilaahay aakhira leeyahay wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun ilaahay agtiisa waxa uga soo muuqday oo uga soo daahiray waxaanay filaynin dee awal buu dreaming ku jiray day dreaming awal buu maalintii riyoonayay day dreamingka waxay idhaahdaan waa qofka isagoo soo jeeda riyooda yacni waa iska tamani waa amaaniyaad waa xaqiiqo aan jirin haddaad adigoo iska jiran wax un maskaxdaada ka guuxaan waa waxaan jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay kuwa khaa'ifiinta axwaashooda nebiguna wuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ibnu cuyayna ayaa wuxuu ka warinayaa ninkaasi ibraahim ibnu ladhab ataymi la yidhaahdo naftayda ayaa waxaan idhaahdaa buu yidhi mahaltu nafsi fi ljanna anigoo midhaheeda fiican cunaya oo sharaabkeeda cabaya oo bikradaheeda la mubaasharaya oo nolosha ku jira haddana waxaan isqiyaasaa buu yidhi bal anigoo naarta ku jira oo zaquumkeeda cunaya oo sharaabkeeda cabaya oo sadiidkeedii iyo khasaaqeedii iyo waxeedii wada oo silsiladaheedii iyo aqlaasheedii ugu xidhan yihi dabeetana waxaan idhahdaa buu yidhi nafeey horta adigu keebaad doonaysaa labadaas sawir baan isu dhinac dhigaa nafta waxaan idhaahdaa keebaad adigu doonaysaa labada goorba waxay sheegtaa ya adduunkii igu celiya aan maxay acmalu saalixa waxaan ku idhahdaa buu yidhi haddaad dunida joogtaa umniyadaad hadhow yidi diilan doonto imikaad haysaaye facmalii baan idhahdaa buu yidhi nafay hadda shaqee haddaad joogtaa wakhtigii umniyada walidalika ayuha alikhwa jannada iyo sifaadkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamayo iyo dadka gelaya iyo dadka rajada qaba ilahay sifaadka aynu soo sheegnay buu ku tilmaamay aman huwa qaanitun aanaaءa alleyli saajida waqaa'ima yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbih ilahay wuxuu tilmaamayaa miyay siman yihiin kan iyo ka kale ku habeen oo dhan taagan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u qunuutaya oo sujuudsan oo taagan oo rabbi baryaya oo aakhiro ka cabsanaya oo ilaahay naxariistiisa rajaynaya yacni alkhaa'if biاllah waraaji nicmat allahi waraxmatih waa kan habeenkii taagan amaa ninka aan baabkaasi ku jirini waxay u badan tahay inaanu gelaynin kuwan la tilmaamayo waxaad ogaataa ilaahay cadaabkiisa cid walba wuu ugu goodiyey ambiyada loogu goodiyey soo ambiyadu dadka uguma sharaf badna ilaahay baa ambiyada ugu goodiyo wuxuu leeyahay dalika mima awxaa ilayka rabuka min alxikma wla tajcal maca allahi ilahan aakhar fatulqaa fi jahannama maluuman madxuura baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala kaasi waa waxaan kuu soo waxyooday baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala nebi moxamed baa lagu leeyay ee ilaahay cid kale ha ku lamaanaynin hadday dhacdo maxaa dhacaya fatulqaa fi jahannama maluuman madxuura ilaahay malaa'igtuu cadaabkiisa ugu goodiyo wuxuu leeyahy waman yaqul minhum inii ilaahun min duunih fadalika najzihi jahannam kadalika najzi الظaalimiin ilahay isagoo malaa'igtiisa ka warramaya wuxuu leeyahy malaa'igta mid ka mid ee ilaahnimo sheegta baa ilaahay yidhi alle sokadii fadalika najzihi jahannam dee dadka inta kale maxaad u malaynaysaa marka dadka inta kale ninkii xumo sameeya ama wax walaaqda muxuu rajaynayaa in ilaahay subxaanaه wa tacaala maxay ugu goodiyo walidalik baa salafu saalix waxay odhan jireen ninka ilaahay ku caabuda inuu iska rajaynayo una naarba cabsi ka qabin waa murji bay yidhaahdeen kaasi ninka ilaahay un cabsidiisu un wada ee janno iyo waxaway dadka cadaab un ku akhriya waa xaruuri bay yidhahdeen xaruuriga waa khawaarijta ninka ilaahay subxaanaه wa tacala yidhaha anu waan jeclayo janno iyo naar iyo baabkaa kuma jira ee jacaylku unbay haya nacam ilahay in la jeclaado cadamadiisa iyo weynidiisa alcadama fii nafsiha tuxab xataa bini aadamka yaryar qofka bini aadamka ee dadku wixii alla wanaagsani
uu ku weyn yahay dadku way wada jecel yihiin qofka bini aadamka caadiga ah ee wax agtooda iyaga la wanaagsan uu ku weyn yahay maalan geesinimadu dadka bini aadamka agtooda waa ku weyn ninka geesiga dadku iska wada jecel yihiin bini aadamka agtooda waxa ku weyn deeqda qofka deeqsiga dadku iska wada jecel yihiin waayo deeqnimada wax fiicana يعني صفات كوناكسن بن آدم كسيدي سوء جعليها فما بالك رب السماوات والأرض يسوي صفات ورد صفات كوناكسن ورد رب قيله من أجل عظمتي ولذلك ما إلهي قرآن كسكو كان بري وحو السفلية وحو خلق أبوري وحو النمعبحية إلهي واسكان بريا سوي سكان جعلي سيو بن آدم كوحي جعلي عدة قفك وحكو سيك وأبالك كولا هو تعشيتي qofka markasta nimco ku siiya markaad u timaadaba wallahi ninkaas hebel baday waa nin rago abaal badan bigu leeyahay waa jeceshay waayo waa muncim ilaahi ku nicmeeyo waxaan nimco ku siiyay maxaad u malaynaysaa wala jeceliye idan waxay yiraahdaan al-anbiya iyo maqaamaadka sare dadka gaadha waa kamid jacaylku waxay rabbigoodu caabudaan الحب في الله يحب الله سبحانه وتعالى لكن waxa kaloo kamida inaad ka baqayso غضب كيسي عذاب كيسي صفات كيسي كلل شديد العقاب إنه يهي ذو انتقام إنه يهي جبار إنه يهي آخر إنه عران دونه ألا دكتهي أنبيادي إلهي والدورتي ما نلتقي ياما نو شفاعة مركا يراهدان ضدكو كو يراهدان ربك ياما أنت واعري سيه ومتى كرنه فعلا يرى السمايين مد ولا بو حصوصته إلا النبي محمد لقال عليه الصلاة والسلام إذن مع الأنبياء إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيسي كبقيا وخوفه كتشرا وكوة تشرا خوفه ضدك صالحين تيام بيد بين إلهي جنة السيو النبي محمد بالي يقول دعية والصيلة بوسكا عدة قولة يقلي دونتو إن أنا نقول نغضه وإنك الصلاة كستمر كي نكبح آذان كستمر كي دعوه دعينينا لكن كي هذا نقول جنة مرة والنار مرة ون إلهي بان قرآن وينينيا ونوع من الزندقة بين هذا لكن الصير إلى الله وصدح دار الله يسكت داره إن إلهي شعيل هذا قبته عابدش يما هذا نقاض وما هذا نقيس إن هذا عبسيات كعبصرسه عندي سي عقاب كيسي عذاب كيس هذا عابدش وحي علماء إلى هذا وصلت إلهي كوك حياة دوميس حولا دنقد بالغوك حياة بن آدم كدقد بالغوك حياة وحكم ذا بيلي النار تين وعبسي قليل إلهي نتكو عابد سير الجنة دي سرار عينش ولذلك أيها الإخوة سلف الصالح صفات كان دمان بيلهاي ضد عبصدة بيهان شري ضد عبصدة قار كود بوحا الله يرهده نار تمركي أركان طبقا ضدكو شتا مركي أركان قلقل مشري ولذلك بقى إمام مجاهد وحلق الشيء يسقوا فصيريا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين إلهي نارتكم مشيقين نحن جعلناها تذكرة بإلهين دبكا وحا يابا الله ينوسي وحا كمدا إن لينبوانيه تذكرنا النار الآخرين دب مركا دارك طبعين أدقرته كيكا ويلايا كدبيهم حد كيال ويا ناركم بالليلي وجزء نارتي يتضبات انشير لسوق بوشي باطنة إذن تاني أدي دقنين كوطهي وتذكرة أيه تيدكو إلهي كعبصرية سبحانه وتعالى ولذلك بان رقي هوري رق عبسده وحي كانتين هرد بكي من ويده رق حتى الصحابة كمده شداد بن أوس صحابي قال له أورنجري ثابت بن محل حسان بن ثابت باديروه والصحابة دي شام دقنان شرتي واحد هذا مركو فراش كيسه وهيده مركو قرقيسه تقو فراش كصيحده أيوب قال ما يستاسدي حبض يرون مقلل الدول سارق على هذا داوها وحلقوا يعني داوها وحلقوا شيله هدي واحد سليده مركب وضح شيله يسو ما دبك ما اسكما حجيان وحلا شيله يا بود بودا مر الله لي ما كفراش كيسه جيف صدبا يدهدان بو قلقل ما يستاسحن وايا مركز وحور جربان لها اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني عنها صحابي كريم حلي إلهي وحصوصت جهنم أن حصوصته إما أقلان يسو إلى السحضة يعني جهنم حصوصت هذا وحي كان يسا إن هرد يجي من كرويده مركز انتو استاقابوا الصلاة بلا بشريبان لهذا أبو سليمان الداراني باوح ورنا يا طاووس تابعي قيل يقاني
furaashkiisuu dhigtaa buu yidhi markaasuu seexdaa waa isrogrogaa dabeetana intuu ka kaco xagga qiblada u jeesto ayuu wuxuu idhaahdaa xasuusta jahannama ayaa hurdadii caabidiinta la tagtay buu odhan jiray hurdadii dadka caabidiinta ah waxaa duuliyey xusuusta jahannama malik ibnu dinaar ayaa wuxuu ka warinayaa ibnatu rabiic ibnu lkhaytham inantii uu dhalay ayaa waxay tidhi aabbow maad iska seexati aabbaheed oo gami waayey bay arkaysa dabeetana waxay leedahay aabba maad seexati wuxuu ku yidhi ina annaara laa tadacu aabaaka yanaam cadaabka xasuustiisu aabbaha hurdo uma ogola caamir ibnu cabdallah ayaa wuxuu tilmaamayaa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ku celinaya maan arag nin janno doonayo hurda ama qof naar ka cararaya oo seexday dabeetana wuxuu odhan jiray adhaba xaru nnaari nowm cadaabka kulaylkiisa ayaa hurdada tagsiiyey muu seexan jirin bay idhahdeen intuu waagu ka baryo waagu markuu baryaabu haddana wuxuu odhan jiray adhaba xaru nnaari nowm maalintiina hurdada waxaa tagsiiyey cadaabka kulaylkiisa casarkii ayuu dhici jiray bay idhahdeen gelinka dambaa in yari ka iman jirtay ragga kan marka aynu tilmaamayno rag badanoo salafkii ka mid ah waxaa la tilmaamay inaanay qosliba jirin walidalik ayaa saciid ibnu jubayr ayaa la weydiiyey bay idhaahdeen xajaaj baa ku yidhi bay idhaahdeen waxaan maqlay saciid binu jubayr uma qososhid markaasuu yidhi kayfa adxak wa jahannamu qad sucirat oo saan u qosli buu yidhi iyadoo jahannamo weli la hurinayo jahannamo rabu samaawaati waalardi uu hurinayo oo loo hurinayo bashar dembaabay saan u seexan buu leeyahy waalaqlaalu qad nusibat waazzabaaniyatu qad uciddat salafka masaa'ilkan laga wariyaa waa tiro badan yihi waxaa ka mida bay dhahdaan cid jahannamo markay xasuusatay bukootay cumar bnu lkhadaab baa wuxuu maqlay bay idhaahdaan nin tahajudaya oo akhrinaya ina cadaaba rabbika lawaaqic ma lahu min daafic suuratu tuur akhrinaya mudduu bukay bay yidhaahdaan muddo ayuu bukay gurigiisa jiifo la ziyaaranaya an wax kale lala booqanaynin baquhu baqday daraaddeedu baquha ayuha alikhwa alxaafid ibnu rajab baa wuxuu leeyahay baqaha ini waa waajib inina wujuubka way ka sarraysaa in waa waajib oo inta kugu kallifta inaad faradka la timaado xaaraantana ka gaabsataa intaasi waa waajib buu leeyahay cabsida intaasi inaad cabsootaa inina waa maa zaada calaa dalik buu yidhi oo waa baqaha kugu kallifa inaad faydato oo dadaashid oo taacaadka aada la timaadid makruuhaadkana ka tagtid inna waa ka sii fiicantahay buu leeyahayoo waa inta keentaba inuu qofku ama bukoodo amase laba geeriyoodo oo dhinto ilaahay baa subxaanahu wa tacaala naartiisa inagu bajinayo wuxuu leeyahay kalaa waalqamar walleyli id adbar wasubxi ida asfar inaha la ixda alkubar baa ilahay yidhi inta rabbi dhaartay oo dayax ku dhaartay oo dhowr goor dhaartay baa rabbi wuxuu leeyahy inaha la ixda alkubar naartu waa kuwa waaweyn bay ka mid tahay baa ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala nadiiran lilbashar baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxaanay digniin u tahay bini aadamka faandartukum naaran taladaa waxaasoo dhan xadiidkii saxiixa ku yaalay ee cadiy ibnu xaatim xadiidkiisii dheeraaya uu ka warramayey markuu soo islaamayay oo nebiga u yimi ayuu wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa itaquu nnaar qaala waa shaax nebigu waa naga jeestaa haddana waa jeestaa buu leeyay isagoo le itaquu nnaar sidii wax qof wax arkaya oo loo soo bandhigay ayuu marna nagu idhaha itaquu naar marna jeestaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam xataa danannaa annahu yanduru ilayha ilaanu u malaynay buu yidhi nebigu inuu naartii arkayo markii dambe nagu yidhi buu yidhi itaquu naara walow bishaqi tamra war hooy naar iskaga dhowra timir jeexeedna ha noqotee faman lam yajid fabikalima tayiba axaadiista qaarkoodna tilmaamaysa culammadii hore rag ka mid ah abuljawsaan nin la yidhaahdaba wuxuu yidhi
dadka maamulkooda iyo arrimahooda haddii wuxuun layga dhiibi lahaa buu yidhi anigu waddooyinkao dhan wuxuun baan dhigi lahaa buu yidhi nin dhawaaqo aan wax kale ku qaylin ee leh annaar annaar annaarun cid leh ayuunbaan anigu meelahaa taagi lahaa buu leeyahy malik ibnu dinaar baa isna wuxuu leeyahay haddaan cid ii gargaarto heli lahaa anigu shaqo waxaan ka dhigan lahun dadka meelaha isugu yimaadaan intaan istaago inaanan wax kaloo odhan annaar annaar idhaahdo annaar annaar in la yidhaahdo dadka loo diga dee waatuu nebi maxamed samaynayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu buur u baxay ayuu waa sabaaxaa ku qayliyey waa halkay soomaalidu hayaay ka tidhaahdoo kale qofka marka balaayadu dhacdo carabtu waa sabaaxaa waa qayliyey dabeetana waa lagu soo cararay markii lagu soo xoomay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hayayda haye u qaylinayay waxay ahayd war waxaan idinka digay war may rumaysanaysaan buu horta ku yidhi haddaan idin idhaahdo buurtan iga dambaysa col baa soo socda oo waa laydin gelayaa magaalada waa la gelayaa war dhiilalan haya ma layga qaadanaya haa baa la yidhi beenba laguguma yaqaano saan lagaaga rumaysan war waxaan idinka digayaa buu yidhi ilaahay cadaabkii cadaab kulul baan idinka digayaa walidalik baa culammadu waxay leeyihin ibraahim ibnu ladham baa wuxuu leeyahay umniyada aan leeyahay naftu nahooy nafay haddaad umniyadii ku jirtaa waa maxay ilahay wuxuu leeyahay xataa ida jaءa axaduhm اlmowtu qaala rabi irjicuun lacalii acmalu صaalixا fima tarakt walow taraa id wqifuu clى الnaari faqaluu ya laytana nurad wla nukadiba biaayaati rabbina wanakuna min almu'miniin walow taraa id اlmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbana absarna wasamicna farjicna nacmal صaalxa ina muuqinuun whm yasطarifuuna fiiha rabbana akhrijna nacmal صaalxa غayra aladi kuna nacmal أwalam nucamirkum ma yatadakaru fiihi man tadakar wjaءakum الnadiir qaluu rabbana amatna اtnatayni waxyaytna اtnatayni faاctarafna bdunuubina fahal ilى khuruuji min sabiil ayuha اlإkhوة waxaasoo aayaadi waa umniyaadka aakhiro marka cadaabka la isgeliya ama qiyaamaha la istaago ama naarta ay muuqato ayaa lagu wada halaanhalaya rabbow naceli rabbow naceli aan camal suuban soo samayni waxa yaab kale waxaa ka mid ah bini aadamka iyo qalbi adeegiisa walow caaduu ilahay muxuu yidhi walow rudduu la caaduu lima nuhuu canhu waxaynu u baahanay man najaax maxaa lagu badbaadayaa cuqbata bnu caamir ayaa nebiga u yimi calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku yihi ya rasuula اllahi man najaax maxaa badbaado ah xadiidka imaamu tirmidi baa warinaya sheekh alalbanina waa saxiix buu leeyahy markaasuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam nacam wallahi man najaax kayfa nanjuu min cadaab illah baa la yidhi ilahay cadaabkiisa saan uga badbaadnaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam amsik calayka lisaanak waliyasacka baytuk wabki calaa khati'atik carabkaaga hayso control waa sheekaynaa waa warannaa waa hadallaa waa wadnaa ka warran haddii aakhiro loo inta la yimaado waxaad ku hadlaysay un la xisaabinayo haddaad ogtahay in la xisaabinayo soo hadalka maad controosheen nebi maxamed wuxuu leeyahy badbaado haddaad doonayso carabkaaga hayso gurigaaguna ha ku qaado dadka kale iyo inagu waxaynu ka warrannaa hebel baa waxaa samaysay dowladda halka ka boodaysay si hebel baa waxaday kan baa saan yedhe wadaad kan baa bidcoola noqday halkan baa ka baxday cid kalaa la sifeeya nebi maxamed wuxuu leeyahy wabki calaa khati'atik nin kale tiisa intaad ilowda aakhira lagu odhan maayo kuwaa ka warrankoogiya waxa lagu weydiinayaa adiga iyo akhtaadaadii nebi maxamed wuxuu ku yidhi haddaad badbaado doonayso wabki calaa khati'atik dembigaaga la ooy طuubى lman malaka nafsه wwasaca bayth wbaka calى khati'atih walidalik nebigu wuxuu tilmaamayaa ninka ooya ee ilaahay dartii u ooya inuu ka mid yahay kuwa ilaahay subxaanaه wa tacaala warajulu dakara allaha khaaliya fafaadat caynaah carshi raxmaanka kuwa harhsanaya maalintaa badbaadaya waxaa nebigu tilmaamaya kuwa naarta ka badbaadaya
حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله labada xadiid waa صaxiix ilaahi subxaanaه wa tacaala naarta wuxuu ka mamnuucay laa yaliju الnaara rajulu baka min khashyaة الlah badbaadadu intaad hadhow ooyi lahayd inaad imika oyda weeyaan walidalik baa waxaa la yidhaahdaa dadkeenna kan rajada inugu badan inagoo aan camalba haynin saalixiintu laakiin cagsigay ahaayeen iyagoo camalku ku badan yahay ayay haddana cabsiduna ku badnayd abi bakar soo ummadda nebi maxamed kii u fadli badnaa maaha ayaa intuu ooyo oo istaaga oo carabka isku dhago ayuu wuxuu odhan jiray hada aladii awradana almawaarid waa kanka meel xuniga tuuray waa abi bakar oo intuu salaada isu taago sida qoriga aan dhaqdhaqaaqin baa la leeyahay abi bakar oo intuu ooyo salaadu tukanayo ay inantiisu tiraahda ilaahay rasuulkiisa iyo abi bakar dadka imaam ha uga dhigin waayo kathratu bakaa'i oohintiisa tirabadnidiisa cidba maqli mayso lala tukan kari maayo waa abi bakarkii caynkaasaa ooyaya cumar maantii midida la geliyey ee uu geeriyoon doono salaad isagoo dad tukinaya ayaa midi la geliyey dabeetana wuu dhacay inankiisa cabdilaahi yaa u yimi oo madaxa aabbihii ciidda inta uu kor uga qaaday ayuu dhabtiisa saaray cumar baa wuxuu ku leeyay wayxak dac khaddii cala alard casaahu an yarxamanii cumar bin alkhadaab baa inankiisii la hadlaya wuxuu leeyay wayxak waa eray aan habaar ahayn luqada carbeed laakiin macnaha bixin kara laakiin aan la odhanin marka la habaartamayo war dhabankayga dhulka iska dhig buu yidhi waxba dhabtaada ha saarine ciidda ii saar in rabbigay ii naxariista buu leeyahy bal waylun ummi in lam yakfir lii waylun ummi in lam yakfir lii buu leeyahy hoog baa anigii hooyaba u sugnaaday ama hooyaday baa hoogtay haddii aan rabbigay ii naxariisan yacni waa lay cadaabayaa cumar baa ku halaanhalayo ku laytanii kuntu mansiyan leh tibni intuu soo maray bal maan qorigaas oo kale ahaada tilmaamaya waxaa la yidhaahdaa wejigiisana ilmadu laba layn oo madow bay ku lahayd bay yidhahdaan cumar marka wejigiisa la eego siduu u ilmaynayey ayay calaamada ka samaysmeen cuhmaan ibnu cafaan ayay xabaal dul yimi markaasuu ooyey oo ilmadu garhka ka dareeraysaa wuxuu leeyahy low annanii bayna aljannati waannaari laa adri ilaa ayatuhumaa yu'maru bi haddaan janniya naar dhex taagnay oo aanan garanaynin labada mid laygu tuuri doono waxaan odhan lahaa ilaahu ciidiga dhig ma sabreen naarta ah muuqaalkeeda waa rijaalkii casharati lmubah waa kuwii ugu mudnaa muslimba kuwaynu ka warramayna nebi maxamed baa laabtiisu ka asiiri lmirjal ama libaaxu siduu u guuxayey isagoo ilaahay u tukanaya subxaanahu wa tacaala ama dherigu siduu u kudhkudhleeyo u kudhkudhlaa dheriga marka dabka la saaro ee biyuhu islaba rogaan u qayliyaa wuu sanqadhaa laabta nebi maxamed baa sidaasi u sanqadhaysay cabsi ay rabbigood ka cabsanayaan subxaanahu wa tacaala iyo cadaabkiisa mucaawiya ayaa waxa u yimi nin diraar la yidhaahdo oo ka mid a raggii cali taageeri jiray markaasuu yidhi war cali ii sifee wuxuu yidhi cali kuu sifeeyaya markuu waxyaabo ka soo warramaybu wuxuu yidhi wuxuu ahaa nimaan adduun hunguri haynin oo habeenka madowgiisa weheshada oo ilmadu dareerto oo cunno inteeda adag kaga gaabsada marana inteeda gaaban ka xidha midkaayo markuu u yimaado buu yidhi soo dhoweeyo naga mid ah laakiin weynayn iyo cabsi aanu ka qabno haddana aanan la hadal waxaan ilaahay uga markhaati kacayaa buu leeyahy inaan arki jiray habeenka madow goortay xidiguhu dhacayaan caloo ooyaya
oo gadhka ishaya oo ilmadu dareerayso oo sidii nin bahalqaniinay oo kale u ooyaya oo le yaa rabbana oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baryayoo leh adduunka la hadlayo ilaya tacaradat ilaya tashawafat ilayi tacaradti adduunow maanaad sukay soo bandhigtay maanaad sukay soo muujisay aniga kayrkay kadi saddex baan ku furay leh cumrigu waa gaaban yahay majliskuna waa mid liita khatartaaduna waa yartay adiga yacni waa lagu sabri karayaa ooyaya diraar baa wuxuu leeyay waxaan eegay mucaawiyahan u warramayey oo isna ilmadu dareerayso yacni saxaabadii nebi maxamed waxay ahaayeen kuwaasi uu nebigu ku lahaa kun fi dunya kaannaka gariibin aw caabir sabiil kaannaka gariibun aw caabir sabiil war adduunka ku ahaada sidii mid jid goynaya ama gariib ku ah waa kaa uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wassalaam war ninka hamigiisao dhan mid qura ka dhiga buu leeyahy nebigu ilaahay humuumta kale isagaa kaaga filaanaya haddaad adigu hamiga aakhire isugu geysa baa lagu yidhi oo naar ka cabsatid oo janno hunguraysid oo raganimadaada iyo taladaada iyo xooggaaga iyo xoolahaaga iyo xiniyahaaga iyo ninnimadaada iyo aftahannimadaada iyo magacaaga iyo maamuuskaaga haddaad ku dalbayso adigoo aakhira ay tahay meesha xooggaagu aad ku maqan tahay ilaahay baa kaaga fillaanaya buu nebi maxamed leeyahay inta soo hadha marka hadduu hamigaagu naar iyo janno yihi ilaahay baa kaaga filan inta dambe amaa hadduu hamigaagu adduunka noqdo taa ad ilowdo ilaahay dan kaama laha baa la yidhi dooxooyinka dunida iyo hamiyadeeda kaleh ku halaagsamayso kolle mid baad ku halaagsamay adigoo uun warwarsan bay kaa boodiye kay kaaga boodayso ilaahay dan kama le baa la tilmaamaya qofka hamigiisu noqdo war aakhiro saad u dhaqaaqi nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofnaba ilaahay hortiisa kama dhaqaaqayo waa lagu ribdhayaa ma dhaqaaqi kartid su-aalo shana ama afaraad oo ka jawaabo mooyaane waa taagnaanaysaa qofka ka fekeraya maantaasaad u dhaqaaqi doontaa dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi ilaa lagu weydiiye war cimrigii maxaad ku bixisay cimraa lagu siiyee saad u isticmaashay wakhtigaagii dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaabo mooyaane war cimrigu isku mid maahayna intii dhallinyaronimadii xoogga aada lahayd xaggaad ku bixisay dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaabo mooyaane war waxaad xoolo shaqaynaysay xaggaad ka keentay ma xaaraan bay ahayd mise xalaal dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaabo mooyaane xaggaad ku bixisay dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaabo mooyaane war wixii lagu baray maxaad ku qabatay aqoontaadii mid adduunya mid aakhira ha noqoto ma ilaahay bay kuu hogaamisay ma rabbaad kaga cabsatay ma dad baad wax ku tartay mise waad ku xoogsatay uun ta diineedna waa lagu xoogsadaa haddii la rabo taa maadigaana waa lagu xoogsadaa haddii la rabo wuxuuba ma xoogsay kaa ahayd una waad ku xoogsatay mise ilaahay baad kaga cabsatay subxaanahu wa tacaala qofka mu'minka ahi maalinta aanad dhaqaaqaynin si aad uga fakertaa bay ku xidhantay haddaad fursadda haysataa waxaana la tilmaamaya ilaahay inta lagu hortaago inaad sida birta u ribdhanaan doonto aanad dhaqaaqi doonin adigoo jawaabo ka bixiya mooyaane jawaabahaad ka bixiso ayaa waxay jawaabu yihiin dhankaad u dhaqaaqayso inaad xagga janno u dhaqaaqi oo aad badbaadi iyo inaad xagga naar u dhaqaaqi oo aad halaagsami jawaabtaad kuwan ka bixisaabay ku xidhantay ayuha alikhwa waa hubanti qofka mu'minka inuu rabbi rajaynayo oo aan camalkeennu ku filayn marnaba janno oo aan camalkeennu ku filayn marnaba inaynu naar ka badbaadno oo nebi maxamed baa leh calayhi salaatu wasalaam midkiinna camalkiisa janno kuma gelayo walaa adiga bay ku yidhaahdeen walaa anaa buu yidhi in ilaahay ugu naxariista mooyaane laakiin istijlaabu raxma baa loo baahanyay ilaahay naxariistiisa saad u keensanaysaa saad ugu biiri lahayd kuwa ilaahay u naxariisto ilaahay oo waan kaa cararayaa iyo i naxariisamaya macquulta ilaahu wakhtigayga wax kalaan ku bixinaya i naxariiso ilaahu kuuma jeeda i naxariiso ilaahu naar ka biqi maayo i naxariiso ilaahu jannana dooni maayo i geli
وحوكسن ما يجلي فقلدنت وحصحي وحويان إله عذاب كأن كعب قيا يجبد بادي إله الجنة هذا هم قولوا يجاه يجيه لكن عمل كوتشره ولذلك أيها الإخوة آفدوا حقيقة بمرك محاكا صديداتكم يدو النار لوجيه إلا الساحضي يدو قرقة كوحيقة وقبنيه إن المطر هذا واسحر يا محاكا صدي يدو الجنة لغوية بوهينا كصيحة محاكا صدي وحاكا صدي بعلماء إلى هذا وضعف الإيمان بالله واليوم الآخر وحير هذا دتكو رمينت أي رميسين آخرة أي مالة قيامة رمينت اللوتش إذا وحويان وين يوحني كهر جوغان وهذه مكاركيسة نلا الشاطر وين أنا قال لبدين إلهي سبحانه وتعالى وين أنا آخرة قال لبدين قرما اللي بدان أوقات الغفلة هذي تربضت هذي موجنانتي يدو هنانتو كوكو بضتو قفك هذه يقول دنسة قام حين نرانا واروا مد عقل قال قد بولو دنتي سما ما يقام wax kale iskaga mashquuliye waa hadda midin yaro shaqa ay ka hilmaanto ka luntay ama xogaa yaro lacaga uu soo qabsan lahaa ka luntay ayaa dadka oo dhame canaananayaan waxay leeyahay war waa bahal dhaandhaana waayo deyntaas ay u jirto uu qaadan kari waayo shaqadii intaas ay u jirto uu qabsan kari waayo dukaankiisii intaas uu jiro wiil kaasayna wada canaanana kaayay yama doohan ninka naariye janna sugayaan aan ogeynba keeba doohan كيبا غفلة كجرة غفلة تاني وإيمانك آخرية إله إلا الربع سنة يليتي وايو إيمانك هدو كرده آخرية إله إلا الربع سنة إساقا كينا إنو قفو طاعة مركابادية عبسيدنا كوكلفو معاصدة كفقاده ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كويا لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن بالنبي قوليه ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن مدي دنين ومكة سنين خوارج لا معاصده يا إيمانكم ما وضع كل مياه وكي خمر عبي يا إلهي رسولك يسجع على نبي وحده لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله أسل الإيمان مدة في السنين لكن إن معاصده قدر كي كاك حين لهابا مغن أيها الإخوة علاجكم مركز يوحي هاي إنه إيمانك إن الدبور بالسنة صحابة إنه كور رميني أنت أرى قرآن كآخر سنبا إيمانك قلع قرآنك ما أنت أرى كوب بضانين قرآن بضاني ما ككو مسعود دقين ما كي إيمانك قلعي وكسنة الصحيحة ابن عمر ولي هاي عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن واختاروا النور يقولوا متكايو إيمانك اللي سينشرين كان قرآن كلا سينين يعني علمك بدندي سما هين إيمانك بدندي سا واحتريي كو إيمانك سو حوغية قرآن كم بائر بري سيد اللو حوغية قلبه وحا قلبي بلو يري تقلب كيس هي النسيان بدندي سي لو شيء بدندي وحبوبها هين حصوصة اللقوع العليه إلهي سادرادات قرآنك وينوقع العليا آخره يا جهنم يا عذاب كذا وينوقع العليا الجنة يا النعمة طالة وينوقع العليا إلهي وينديسه إلهي وينوقع العليا سواء آخر لين حصوصين إن ساعة آتية أكاد أخفيها وقدرت إلهي والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق أنت إلهي دارتي وحاصر داره يا إلهي وحلي وحلي يبوهي وادق وإن الدين لواقع قيامنا ودعية إلهي سبحانه وتعالى نبي سولي وغدار وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي نبي محمد بلى ليادنا داروش لتأتينكم إلهي سبحانه وتعالى إن بضنبوا إنوقع العلي إنوشاق إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا مصحف كقرآن كهدات ركركته بيج إلهي وينيدي سي جنية النار كم غطي ومالين ما ينتكسو هلس لح بقول يا فرت بيج وككوبية خادم الحرمين وكانوا ضابعي
haddaad bayt saa u rogto u malayn maayo bayt aan rabbi ka warramaynayo weynidiisa iyo cadamadiisa iyo in laga baqdo ama aan ka warramaynin janno iyo naar. in lagu celceliyaa waa dariiqa qalbiga loo dawriyo, dadka in wacdigeeda loogu celiyo naar iyo janno, in la xasuusiyo, in loo tafsiiliyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan badan buu soo dejiyey. caaisha waxay tilmaamaysaa qur-aanadii ugu horreeyey nebiga ku soo degay waxaa ka mid ahaa bay leedihi qur-aan janno iyo naar ka warramaya. qur-aan janno iyo naar ka warramaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala midna ku cabsiinayo midna ku hunguri gelinayo. wixii ugu horreeyey qur-aanka soo degaa bay leedahay hadday xalaal iyo xaaraan noqon lahaa dadku waxay odhan lahayn weligayo zinada kama tegayno iyo weligayo wax khamriga ma daynaynay odhan lahayn. laakiin kuwaa lama soo horraysiinay waxaa la soo horraysiiyey janno iyo naar iyo ka warrankeed. waxaa la soo horraysiiyey suuratu mudathir oo ilaahay ku dhaartaynu ka warramayna ka warramaysa innahaa la ixda alkubarku ku jirto. waxaa la soo horraysiiyey qur-aan cibaadada ka warramaya in la istaago iyo habeenkii in la kaco. yaa ayuha almuzammilu qumi llayla ilaa qaliila nisfaha aw inqus minhu. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay kan isduuduubaya iyo saxaabadiiba istaaga habeenka oo dhan in yar mooyaane ama badhkii, ilaa la soo gaadhsiiyey innaa sanulqi calayka qawla haqiila ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waطan wa aqwamu qiila. dacfiga iimaanka waxaa daweeya dadkoo la xasuusiyo waxa aakhiro dambeeya, waxa janno iyo naaray ka warramayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada wuu ka warramo, naarna wuu ka warramo. qur-aanka way ku filayd in la yidhaahdo war naar baa jirta iska ilaaliya, laakiin lama odhanine waxaa la yidhi naartaa gelaysaa waa laga dhabeelaa waa la indhabeelaa wahum fiiha laa yasmacuun baa la yidhi. nebigu xadiidkii saxiixu muslim ku yaalay ahluhaa cumyun wa bukmun wa summun buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waa dul dhagiyo indhaa iyo meel walbala. naar baa laga warramay laakiin keligeed lagama warramine waxaa la yidhi waar wejiga idinka leefaysaa, wejigaa idin madoobaanaya kaannamaa ukhshiyat wujuuhum qiطcan min alleyl talfaxu wujuuhahum annaar waina jahannama lamuxiiطaة bاlkaafiriin lahum min jahannama mihaadun wa min fawqiha gawaash laysa lahum طacaam wa min fawqihim gawaash laysa lahum طacaamu ila min dariic laa yusminu walaa yugni min juuc ina shajaraة الzaquumi طacaamu lahiim kalmuhli yagli fi اlbuطuun وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وسقوا ماء حميما وقطعت فقطع أمعاؤهم. إلهي سبحانه وتعالى وحاصر محال ورمية فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث لا ظليل ولا يغني من اللهب. ilaahay subxaanaه wa tacaala intuu naar ka warramay waxa lagu cunayo, waxa lagu cabbayo, huga la gashanayo, meesha la degayo, sida laysu dullaynayo, waxa lagu qaylinayo, waxa lagu subkanayo, waxa la cabbayo, waxa la cunayo, waxa loo tafsiiliyo wax weeyaan lagu cabsi geliyo. janno ilaahay markuu ka warramayna waa jannuun lama odhan ee waxa la sheegay waxa nimco ku jira, webiyada dareeraya ee khamro leh ee sharaab leh ee malab leh ee caana leh. waxaa la sheegay xuuralcaynta joogta, waxaa la sheegay xuuralcaynta iyo sifaheeda, xataa ilaahay naasiheedu ka warrama. qiyaas rabu الsamaawaati waalardi markuu xuuralcaynta sifaynayey kawaacib buu ku tilmaamay, curub buu ku tilmaamay. ilaahay wuxuu ka warramay dhaqankoodi iyo akhlaaqdoodi iyo siday yihiin, qurxdoodu ka warramay. xataa ilaahay wuxuu ka warramay waxa naqaa'isad dumar adduunka markay joogaan ay leeyihiin inaynay lahayn. dhiiggoodaa laga warramay inaan dhiig iyo mid dhalmo iyo mid dhalitaan iyo waxba toona inaanu ka iman baa laga warramay. mar walba inay diyaariyeen baa ilaahay ka warramay. maxaa loo sifaynaya? maxaa sida tan loogu balballaadhiyey? waxa loogu balballaadhiyey waxa weeyaan in wax layna xasuusiyo. walidalika ayuha alikhwa
nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam marka uu tilmaamayo lamara mila الnaar naama haaribuha walaa mila الjanna naama طaalibuha waa war layna xasuusinayo. nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam adduunka markuu joogay ee uu maka joogay ee la dhibayey ee nafta la ysgu keenay ee ay noqotay inuu baxo ee ay u yimaadeen ansaari ee ay heshiiska la galeen. heshiiskay la galeen maxay ahaayeen? wuxuu nebigu yidhi iyadoo carab oo dhami raadacaynayso meeluu galo u la-yay bay waxay yidhaahdeen waa ku difaacaynaa, naf iyo maal iyo nafiisba waa kugu bixinaynaa, carruurtayada iyo reerkayaga iyo waxaanu ka ilaalino saanu kuwaa u ilaalinaa baanu kuu ilaalinaynaa, ee maxaanu leenahay bay yidhaahdeen. maxaanu leenahay? dowladnimadaa helaysaan, aniga dabadaybaa madax noqonaysaan, waa dhergaysaan, waa badhaadhobaysa. baabkaa nebigu kama warramin. muxuu ku yidhi? walakum aljanna buu yidhi, walakum aljanna. aalu yaasir oo la cadaabaya buu soo maray, qoyskaa reer yaasir oo islaantii la toorjar garaynayo toorjarkii ku dhimatay, sidii loo garaacayaa naftu ka bood, oo odaygii sidii loo garaacayaa naftu ka bood, oo camaaroo inan yari markuu adkaysan kari waayey ayuu wax ku hadhadlayo dabeetana nebiga u yimi oo isagoo ooyo le ilaahay rasuulkiisii markii garaaciiga tiro batay baa waxay sheegayaan idhi hadday kugu soo noqdaan iska dheh buu nebigu yidhi intay sidaan arrinku yahay. kuwaasaa loo cadaabaya markuu soo mara buu lahaa sabran fa ina mawcidakum aljanna. janno. qabaa'ilkii u yimi yidhi waa kuu gargaaraynaaye adiga dabada madaxnimada waxba ku leenahay baa la yidhi arrinku annaga ma nagu soo wareegaya. wuxuu ku yidhi ilaahay baa arrinka iskale iska taga. innagu waxaynu isugu nimaadno dadku inta badani waa maxaan helayaa? shaqo, urur, siyaasad, waxa la doono, waxa la isugu yimaadaba qofkii ka dhex arki waaye wuxuu helayaa. waar meesha waxba laguma hayo, dadkaa la xiijinaya buu odhanaya, waa la daalinaya. war waxaa la helayaa waa janno. ee janno ma u shaqaysanaysa? qofka muslimka ah waxa lagu shaqogeliyaa waa janno. hadduu madax yahay iyo hadduu siyaasad yahay iyo hadduu miskiin yahay iyo hadduu meel dhex joogo iyo hadduu taajir yahayba waa janno wuxuu u shaqeeyaa. waxa uu lagu shaqogeliyaa waa cadaab laga cabsiiyo, inuu naar ka cabsado oo nebi moxamed leeyay inii nadiirun lakum bayna yaday. waxaan idinka digayaa maxay? cadaab shadiida buu leeyay. walidalika ayuha alikhwa, wakti cibaadaa kusoo jirteen, waana laga yaabaa berri inay ciid noqoto ama saa dambe ciid noqoto. shaydaamadii waaweynaana waa lasoo fasaxayaa. ibliis iyo intuu watay maradatu shayaaiin waa la soo daynayaa oo hadda waa maqnaayeen. intan cibaadada aad badsateen kuwa yaryar baa la legdamayseen. hadda laga bilaabaa u baahantiin inaad dagaalka bilowdaan. ilaa nimanka kuwii yaryaraa bay ahaayeen waxaa la legdamayseen. intan masaajiddu buuxsantay ee salaatuleylku tiro batay ee safka hore la joogay ee soonku tiro batay, qolo iyaga kuwa yaryar baaba ka adkaato waa kuwa dabadda jooga. kuwa haddii kuwii waaweynaana kusoo baxaan ilaahay ha badbaadiyo. laakiin inta masaajidda ka camirtay ee camiratay waa intii yaryarka isku dayda inay iska dhiciso. kii weynaabaa kugu soo socday, miyaad fasax tegi haddaba adiguna? kuwii waaweynaabaa soo socdee adna miyaad fasax tegi? mise haddaad laba jibaari waxaad leedahay haddaan soo shidaal qaatay. ramadaan waa meel laga shidaal qaato, waa meel zaadka laga qaato. haddaad saadkaagii qaadatay, haddaan u shidaal qaatay baad leedahay kuwa waaweyn inaan iska celiyo. deriska maanta waxaan ugu talagalay wuxuu yahay inaynu dib u xasuusanno. ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya faman zuxzixa can الnaar waudkhila اljanna faqad faaz wama alxayaaةu اddunya ila mataacu اlguruur. ninkii naar laga riixa baa ilaahay yidhi, naar ninkii laga riixo ee janno la geliyo kaas uun baa liibaanay. deriska maanta wuxuu ku kooban yahay
inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala weynayno oo jeclaanno oo u mahad celino afalaa yakunu cabdan shakuura inaynu cabsanno oo baqanno oo naar baa dambayso oo la hubaa inay imanayso oo la hubaa in geeriyi kaa xigto waayo marka koowaad ee xabaasha lagu dhigo ayaa aydhanta tigaaga lagu weydiinaya meelahan askartu markaad ku joojiyaan iyo dhulkan kantaroolada iyo markaad soo gasho maxaa lagu weydiiyaa aqoonsi keen socankaa maaha id keen idgu wuxuu caddeeyaa maxay inaad meesha u dhalatay ama inaad fiisa u haysato ama sharci u haysato ama deganaansheelada ama basaboor ama nimaad tahay baa la sheega war marka nafta lagaa soo qabtaa laba malag ku imanaya idgaaga dhiiba baa lagu leeyahay idgu markaa ma aha magacaaga iyo reerkiina iyo qabiilkiina iyo maxaad xoola haysatay iyo reer iyo carruur maxaad ka timi iyo adduunkii maxaad xoola kaga timi iyo reer maad ahay idgu kaa maaha idgu waa 3 su-aalood oo qura waa man rabbuk wamaa diinuk waman nabiyuk that's your id wax kaloo cidi ku weydiinaysaa ma jirto war yaa kuu rabbiya diintaad haysatay waa tuma ninkii laydin soo saaray maxaad ka rumaysnayd alrajul aladi bacata allahu fiikum maxaad ka rumaysnayd hadday dhab ahayd markaad dunida joogtay inaad ku dhaqmayso cabsanaysay ilaahay baa ballan qaaday inuu markaa ku haleeshiinayo waa mowqif argagax badan le maaha su-aal si caadiya lagu weydiinayo laba malag oo aragtidooda laga cabsi qabo qofka bini aadamka markuu cabsado soo ma ogid wax walba inuu ilaabo haddii imka lagu hanjabo inta lagu gilgalo lagu yidhaho magacaa inaad horeba u garan weydaa bay u badantay inaad sasto laba malag oo ilaahay noocooda ka warramay oo nooc gaara ah oo sabarada naarasitoo ku soo gelgelaya oo ku fadhiisinaya oo baqaha dhulku kula go-ayo aanad haleelaynin inaad waxbaba xasuusato ayaana su-aasha ku weydiinaya ilaahayna wuxuu leeyahy yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabit goorma fi lxayaati addunya wa fi laakhira haddaad halkan iimaan ka dhistay idgaaga markaa waad la soo baxaysaa waa kan baad leedahay haddii halkan markaad joogtay aanad cabsan jirin halkan markaad joogtay aanad ilaahay rajayn jirin halkan markaad joogtay aanad badbaadada u xidhnaanayn idba dee awalba maad sidanin ama mid googo-ay oo aan la akhriyi karayn buu ahaa dan markay cabsidu timaadana ma sheegi karaysid idan naar inaad gasho iyo inaad janno gasho intay kaa baxaysaabaa kaaga hadhay soomaad aragtidu maalin walba mid la sii sido meeshaasaa loo sidaa qof kasta oo la sii sidaa halkaasaa loo sidaa inaad adna lagu sidaa waa ilbidhiqsiyo halkan baa naftu kaaga boodi kartaa waad maqashaa un hebeloo fadhiyaa wadnuhu istaagay iyo gaadhaa jiidhay iyo meel buu ka soo dhacay iyo naftuubaa ka baxday iyo habeen quruu warraaqay iyadoo la sheegaya waad maqashaa waxaan rabaa inaydin xasuusiyo inaydin sodhan ramadaan waa dhammaatay qolaa macsidaba ka bilowda ciiddaba hadda qolaa macsidaba ka bilowda qolaa ka bilowda ciiddaba inuu salaada subax soo xaadiri waayo illa salaatuleilba ka kaalay hadda masaajiddu iminka salaada subax waa camirantay ramadaan markay dhammaataa umaad waagaysaaba dadkii nus baa maqan dee kii weynaabaa la soo daayoo dusha kaa fuulay nawmun tawiil wakti badan baa kuu hadhay seexa buu bilaabaya markaasaad leedahay waad ka gaadhi doontaa horta inta aqiimka sii yaro jiif marka la aqiima waad odhanaysa waad ka yara gaadhi doontaa kollay jamci ku dhaafi haddaba cadceed horteed baad tukani kelmaddayda waxaan kusoo koobaya ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ariiqa saxayna waafajiyo naartaasna in ilaahay inaga badbaadiyo subxaana wa tacaala jannadiisana waddada loo maro inuu inoo fudaydiyo kuwii ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa ku sugay inuu inaga yeelo kuwii rabbigood ka cabsaday in alla inaga yeelo munkarkiiyo nakiir su-aashooda kuwa ilaahay sugo in alla inagu daro innaga iyo intiina dhashaba in ilaahay u naxariisto muslimiinta dhammaantood in ilaahay u naxariisto wixii dhibaato haysata in ilaahay dhibaata ka faydo dhibaato se naar ka weyne ma jirta in ilaahay taa inaga wada badbaadiyo وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتى ليل المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد